nimankii buqaada ahaa ee markii Cusmaan ay rabeen inay dilaan fadaa'ilka uu sheegtay bay kamid ahayd arrinkaas warmaanaad dilaysaan buu ku yiri nimankii buqaada ahaa ee Masar iyo Basra iyo iska soo urursaday ee doonaya Cusmaan inay qudha kaga jaraan runtii wayna dileen markii dambe wuxuu warmaanaad dilaysaan miyaanadi ogeyn buu laba gabdhood oo nabi uu dhalay in aniga la ii dhisay oo tani markay iga dhimatay tii labaad uu nabigu ii dhisay tii labaad markay iga dhimatay uu nabigu yiri ina saddexaad oo ina Muhammad haday noolaan lahayd Cusmaanow waan ku guurin lahaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam awwaliin iyo aakhiriin waa ninka kaliya laba gabdhood oo nabi uu dhalay ay xaasul noqdeen balay taariikhda nin kale oo galay ma jiro caalamka ugu keligii uu taariikhda ku jira Cusmaan ninkaas aan ahay aniga maxay iga dilaysaa warmiyaan adii garanayn buu waxaan ahay mujahhiz jaysh al-usra ciidankii cuslaa ee nabi maxamed uu hor socday sodonka kun ahaa ninkii sahaydooda diyaariyay ciidanka xambaaray ee gaadiidkay raacayeen iyo sahayday ku baxayeen keenay baan imaad garanayn buu ku yiri waraniga miyaan adii garanayn buu ninkii bi'r macuuna maalintii ansaar muhaajiriintu nabiga u yimaadeen ay yiraahdeen magaalada Madiina biyaheega waa la iibiyaa anaguna lacagan biyaha ku gadana ma haysanno waxaan ahay ninkii nabi maxamed ku yiri ceelka bi'r ruuma aniga keenay nabi allah ceel jannada ku yaala hal igu ballan qaado ee ceelka ninkii lahaa intuu u tagay 30,000 dinar intuu siiyay furaha ka soo qaaday nabiga u keenay ku yiri yaa rasuulullah ceelkaasi waa waqaf muslimiinta abba hadhaasna biisa waa kuwaas oo nabi maxamed uu yiri Cusmaan ilaahay wuxuu ku diyaariyay ceel jannada ku taala ilaahay ku ballan qaado nabigu ku yiri yaa Cusmaan baa nabigu ku yiri maalinka amal dambe oo wanaagsan oo saalix ah hadaanad qaban oo inta aad ku joojisid adigu inta ma janna ku gashay buu khalaas ninkaas aan ahay war waxaan ahay ninkii nabi maxamed uu yiri miyaanan ka xishoonay ninka ay malaa'iktu ka xishooto wayaan Cusmaan nabiga alayhi salaatu wasalaam oo jilibkiisaas uu muuqdo ayaa Abu Bakar u soo galay oo iska fadhiyay nabigu sidiisii kama dhaqaaqin fadhigii hadana Umar baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay hadana Ali baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay Cusmaan ibn Affan markuu soo galay nabigu maradii buu hagaajistay markaas nabiga lagu yiri Abu Bakar iyo Umar labaduba sodog bay adiga ku yihiin علينا إن أنت هذو قبا صدق دابا عثمان كسر الرئيسو مرادي مد صار جيلب جيم محاد عثمان وحش وتال لقول يري ميانا كحشونين بالنبي ولنكا ملاك إلهي بكحشوته وعن الأوجه هاي بالنبي ولا عبدان سيدي وفرد لها حشو دراد العثمان ما صوق عليه ولا كان وجوج لها ورنكا دليسان ونكا سوري نكا سانا حد يقدر دليسان عليك علي بقوي مدي وإنما دي قرب سعودان وهو كسوق عتاني يا أبا هريرة يا أمير المؤمنين نما كان بقادك وقصود لو أشب قولون مقالة المدينة أفرتن كن أنين باجوكتي هنلاينو هنقابنا وقلنا هنكجرنا نوقف الصحاب كويري وعلي مي ديق إسلام مقالة المدينة كل هذا مايه حتى أنا جاي دلان هاي دلان حتى أنا جاي دلان بقول أنا النبي عيسى يقول يري قميص كإلهي كوجلي يبي دم عدونا إنه كاسران هذا عثمان وقميص كأدس كسرت النبي يقول أنا جاي أركي مسجد أقول قيامة هلا كل من مسجد بيرتي أبو بكر والنبي قال باب كي قراعي يا أبا موسى الأشعري وها بواب كالنبي هو قراعي وكما وأبو بكر وقصو إجازة قاضي الجوب نبي قوش يقول عثمان أبو بكر بقى الباب كتاقن سوق الكذب الباب وفصح جننا وبشاره هذا عمر بقى قراعي عمرنا وفصح إنه سوق له جننا وبشاره هذا عثمان بقى الباب كتاقن عثمان السوق الكذب وإذن جننا وبشاره بلا يأسيب دوتنا وشيك برسولكم مركب النبي يقول بشارة دي مركب الله شيء بلايا الله صعوتا وحول الله المستعان مركب تيبو عثمان حسوسي علي وحو كيري بلايا دا أنا جايني قبسني دون النبي جاي شيء أنا قلنا وانسك الصبر ياي أنا كيلي جاي هلا يدلو هندينتو أنا جو هذا هندينتو نينكلا أو مسلمين تكمدو إنك نجمدا باتنا دا أودي بني سانة أنا قدرت يهود قال لمن يسكت دا يبيو الإسلام نمدو باقي هالنقطة
la odhan maayo niman buqaada bay dileen oo madiina ku dileen la odhan maayo waxa lagu sheekaynay haddaan isku kii fasaxa imika muslimiintii daarul khilaafa buu dagaal ka dhaco dawladda islaamku way baaba'daa la odhan buu marka anu han iska dhinto hay dilaan aniga laakiin dawladdeena islaamku hay noo jirto midnimadeenu ha jirto bal fahmiga saxaabadu ay qabeen eega dhiigoogay ummadda ku badbaadinayeen ummadnimadu inay jirto cusmaan dhiiggiisii buu u huray waayo muxuu dhiigga ugu huri waayey min maalintuu islaamay ilaa la dili doono dhaqaalihiisii oo dhan baa diinta islaamka ku baxaye islaamnimada markay wax kaa galaan baad u lex jecloon moogta asxaabu rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam min kooga faqiirka ilaa kooga qaniga maalqabeenka diintan islaamka iyagu waxbay gashadeen diintu waxbay gashadeen faqataluuhu deedna cusmaan sidaasay ku dileen raggay waliba uu soomanaa maalintii la dilaayay isagoo sooman bay dileen markaasaa raggii u yimid ugu dambaysay u yimid wuxuu ku yidhi xaq haddaan nigu leehood anigu amiirkiinii aan ahay aqaladiina fadhiisa seeftan iska dhiga buuli aniga hay difaacina waayo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar iyo cumar baan ku manaamay waxay igu yidhaahdeen cusmaanoo maanta annagaad nala afuri doontaa marka anigu waan socdaa buuli ma joogay adduunkan meel fiicanna waan marayaa marka aniga dartay ha u dagaalamina buuli aniga magacayga dhiig islaam ha ku daadanina halkiina jooga buuli aqaladiina fadhiista markaad maqashaan cusmaan waa la dilayna inagu shuuraysto amiir muuminiinta u doorta buuli taladu ninkay naga guya kuwan u noqon mayse dhiiggiisii buu ku badbaadinayaa dadnimada iyo dowladnimada islaamku inay jirto innagana zamankeenna wuxuu le diinta maxaa iga galay buu ku odhan diinta maxaa iga galay dee diinta waa run waxba kaama gelin caqli kaama gelin oo dhaqaale kaama gelin oo wakhti kaama gelin oo dhiig kaama gelin oo dheecaan kaama gelin laakiin qabiilka haddii la caayo waa damqan reerkaad ka dhalatay haddii la caayo oo la taabto dhiig kar baad yeelo dhiig wadnaha ku kici waayo reetolka maxaad ugu damqanaysaa qaaraankaad ku bixisaa iyaga islaamnimadase waxba kaama gelin iyaga islaamnimada waxbaa ka galay min maalinkuu islaamay cusmaan ilaa maalinkii la dili doono dhaqaalihiisoo dhan diintu ku bixinaye meesha xooggiisii dhaqaalihiisii caqligiisii uu ku baxay inuu naftiisa ku badbaadiyana diyaar buu yahay ani hay dilaan laakiin midnimadeennu ha jirto ani hay dilaan laakiin magaaladii madiinu dagaal ka dhacayaan la maqlin aniga hay lay dilo han ka taga adduunka laakiin islaamku is haysta han ka tago laan agtooda diinta qiimo lahayd iyaga عبد الرحمن بن عوف كذلك غني بوها رضي الله عنه القبان وأنك عثمان بن عفان كيابي بوها يسمون عثمان بو كيابي عثمان بن عفان وأمير أيو عثمان أورنجري وحان الله يا بابو لتجارة عبد الرحمن بن عوف سيد الله يابتال لقويري وعلى المسلمين تمدينة كنا لو دنباد مودايني لليهين مركي مغلان عبد الرحمن تجارتي سوي كبعضو ومعاشي ولا فرحان حدي مغلان عبد الرحمن بن عوف تجارتي سي خساره كو يمدي او هوس دعبا كو يمدي حدي مغلان way ka naxan waxayna uga naxayaan baan nii sheegay buu dhageysta Usmaan Baale magaalada Madiina dadka degan Abd الرحمن saddex buu u qaybsaday saddex qaybood qayb uu deymiya lacagta wuxuu dhahdaa macaashkan Allah had reesamaalkan iska soo celiyo qaybta labaadna wuxuu yiri aqaladoodu yaqaanaayo masaariif buu siyaa biilku siyaa biil oo u tirsan yihiin inta guri ee saboolka qaybta saddexaadna wuxuu yiri deynka lagu yeesho ee iska dhiibi kari waayaan ayay isaga ula soo noqdaan yiraahdaan Abd الرحمن baa noo nool ibn Auf baa noo jooga annaka Abd الرحمن bn Auf te u yimaadaan buu ayaa deynku kula hebel waa kan iska siyaana ku nool
ninka xoolihiisii magaalada madiina muslimiinta ku nool oo dhan sidaa ula simay mar aliya markay maqlaan tijaaradii cabdiraxmaan baa kobocday way la farxaan limaada laanna way la leeyihiin hadday maqlaan cabdiraxmaan tijaaradiisii hoos u dhac iyo ganacsigiisii baa hoos u dhacayna way ka naxaan limaada laanna way la leeyihiin iminka tijaarteenu macaynkaaba masaasa waa musliine ya mid miskiin oo dhuuban ayaa arkay nin taajir oo iska yar calool buuran markaasuu yidhi waxa caloosha ka buuxa annaka munasiya buu annagii baa ka gaajoonayna buu waxay asxaabtu ay hayaan waxay u fahmeen inay muslimiinta u hayaan innakuna waxaan u fahmnay waxaan haysta buu ku leeyahay nin walba anaa iska leh aragtada intay isku jirtaa markaa waxaan haysto ana iska leh waxaad adu haysatidna anay igu fiican yihiin iyaku waxay lahaayeen waxaad haysato adaa iska leh allah kuu barakeeyo waxaan anigu aan hayana walaal adaan kuu hayaa inaan xaqaaga ku ilaaliyo naftayda uma nooli bay lahaayeen iyaku ummaddaan u noolahay haddaan dhimanayo ummaddaan u dhimanayaa innagana maanta waxaan maraynaa inaan idhaahno hee waaranu naftayda maan cid kale ma aqaano dadka kale maxaa iga galay buu ku odhan